شريك العمى. إذا ما رأيت المرء يقتاد الهوى قد ثاكلته عند برهنا وأفري طبعا بشي لبا وحدوكتي ومالنتي جعيلك لكن جعيلك نسقى يا نوكين نفسي وقد وجدت فيه مقالا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحابته أجمعين. أما بعد، أحبتي في الله، إلهي سبحانه وتعالى waxaan weydiisanaynaa biasmaa'ihi alxusnaa wa sifaatihi alculaa in uuna hanuuniyo hidaayada iyo hanuunka iyo waddada xaqa ana oo ilaahay uu nagu hanuuniyo subxaanahu wa tacaala. waa midda aan mar walba ilaahay weydiisanayno oo aan leenahay ihdina asiraata almustaqiim. ilaahay oo waddada toosan allow nagu hanuuni. ilaahay waxaan ka baryaynaa inuu xaqa nagu dilo. axibaa'i fillaah, maanta kelimadaydu waa waano iyo nasteexo ilaahay dartii subxaanahu wa tacaala. waxaan marka hore waaninayaa naftayda, waxaan waaninhayaa carruurtayda, waxaan waaninhayaa xaasaskayga, waxaan waaninhayaa da'yarta iyo dhallinyarada, wiilal iyo gabdhaba ka kooban ee waddamadan gaar ahaan ku koray. mataqaanaan maanta nasteexada aan ilaahay dartii idinku waaninhayo. wallahi ilaahay dartii baan idin jeclahay. waxaana doonayaa inaan saas ayada aan jannada ku wada galno. waxaan doonayaa inaan dhammaanteen rabbi una wada liibaano subxaanahu wa tacaala. ilaahay dhammaanteen hana wada liibaano. waxaan rabaa qalbi wanaagsan iyo qalbi furan iyo waano wanaagsan inaan walaalahay maanta aan kala qayb qaato xubbiga iyo jacaylka berridan soo socota. maanta taariikhdu waa 13, berrina waa 14 bishii labaad. waxaad ogtihiin waa maalintii jacaylka, laakiin waa jacaylkee wey. jacaylkan asaga ayaa noo keenay. dhallinyaradeenna inteena badan waan arki doonnaa maalinta ay bisha labaad 14 ay tahay, bisha labaad ee miilaadiga markay 14 tahay, waxaad arkaysaa ayadoo dhallinyaradii intay dhar gudgududan soo qaataan oo boorso gudgududan gabdhihi ay soo qaataan oo kaba gudgududan la soo qaato, suuqa la soo aadayo, oo ayadoo weliba laysu soo hadiyeynayo, ubax laysu soo hadiyeynayo, ayagoo waraaqad laysu soo qorayo, ayagoo laysu faraxsan yahay, ayadoo laysu tahniideynayo. waxaan doonayaa maanta nasteexada aan ku siinayo hal mid weeye. nasteexada ma taqaanaa? faraxan aad faraxsan tahay xaggee ka yimid? ciidulxubbi, jacaylkan asagaa xaggee nooga yimid? jacaylkan taariikhdiisa wax yar aan kuu sheego. waxaa laga yaabaa inaad jahli kaga jirto, waxaa laga yaabaa inaadan aqoonin, waxaa laga yaabaa aabbe iyo hooyo gacanta ku qabta iyo macallimiin gacanta ku qabata inaadan helin baa laga yaabaa. waxaa laga yaabaa inaadan cilmi iyo aqoon u lahayn. waxaan doonayaa inaan maanta aqoon kugu kordhiyo, inaan macrifo iyo wax kaa maqnaa inaan kugu kordhiyo. waxaanse kaa doonayaa caqli caafimaad qaba iyo indho caafimaad qaba inaad ku fiiriso. sida ay taariikhdu soo guurisay, horta maalintan ayada ah lama dhaho maalinta jacaylka, waxaa la yidhahdaa maalinta zinada. waxaa laga yaabaa dhagahaaga inaan wax adag maqashiiyey, waxaa laga yaabaa waxaadan ku talagelin inaan kuu sheegay. oo anigu jacayl baan rajaynayey, oo ubax baan rajaynayey, oo dhar gudgududan baan rajaynayey. waa maxay zinaduna? haddaad wax yar isugto oo dhagaha aad ii raariciso, waxaan ku maqashiin doonaa arrintan ayada ah asalkeeda meesha ay nooga timid. qisadani maxay ahayd? qisadan ayadaa maxay ahayd? sida la og yahay ee la yaqaan haddii aan kuu soo gaabiyo, waxaana kuu sheegayaa inaan ku jeclahay. haddaanan ku jeclayn waxaan kuuma sheegeen, oona ilaahay darti aana kuu jeclayn. qabiil kuuma jeceli, qaraabanimona kuuma jeceli, xoolo aan isku darsanayna kuuma jeceli. waxaan kuu jeclay lilaahi wa fillaah. waata qisadii ayadoo xoogaa kooban, qaybo kala duwan leh. waxaa jiri jiray nimanka la yidhaahdo romaaniyiinta. nimanka la yidhaahdo romaaniyiinta boqor bay lahaayeen. boqorka asagii qisada oo kooban haddaan ku siiyo, boqorka asagii wuxuu go-aan ku gaadhay haddii uu wiil dhasho
in buur dheer dusha laga saaro dhowr beri halkaa looga tago haddii uu noolaado oo uu sii noolaado ninka waa nin muhiim ah ciidanka lagu dari markuu weynaado waa la qorayaa guur iyo qof dumar ana waa laga xarimayaa guur iyo qof dumar ana waa laga xarimayaa qisadaa ma fahamti ilmo yaroo dhashay oo buur dusha laga saaray oo intaasoo maalmood laga tegey oo inuu dhintay in kale la fiiriyey hadduu dhiman waayey maalintuu weynaadana la yidhi ma guursan kartid taasi waa qodob riwaayooyinka ay soo guuriyaan waa riwaayo ka mida wey waxaa kaloo iyadana la yidhi oo inta iyadana daba socota nimankan hadda reer oroba markii ay ku faaftay maxaa la yidhaahdaa masiixinimadu markay ku faaftay ayaa waxaa jiri jiray nin macruufoo la yaqaan oo ninka jacaylka loogu magac daraya dhalinyaradu dhammaan way yaqaanaan odayaashuna way yaqaanaan dabcan odayaasha laftooda way yaqaanaan ninka asagaa falan tahay ninka wax badan baa la yaqaan saxaabada intaan la aqoonin baa la yaqaan xamse intaan la aqoon baa dad dhalinyaradu yaqaanaan dhalinyarada haddaad saxaabada wax ka weydiiso in badanoo ka mida ma garanayaan laakiin qolada ciyaartoyda kubadda halyeyga iyo qolyaha heesa iyo qolyaha jacaylka ka sheekeeya haddaad weydiiso way yaqaanaan weydiiya dhalinyarada yararka falantahay way yaqaanaan ninka asaga ayaa jiri jiray kadibna ninkaa madaxdaa markuu diiday in dadka laisu guuriyo wuu khilaafay kiniisadda ayuu galay si hoos ahaana ayuu iskugu guurin jiray ama iskugu diri jiray wiil iyo gabadh kadibna yaa maqlay mataqaanaan ninkii boqorka ayaa maqlay kadibna waa loo yeedhay arrintan jooji baa la yidhi ma joojinayo wi kadibna waa la xidhay sidii asagoo ku xidhan dadkana dad asnaam caabuday ahaayeen asagu marka diinta kirishtanka ayuu qaatay halkaa ila soco yaan ku dhaafin diinta kirishtanka ayuu qaatay yacni masiixiyad ayuu qaatay maalintanba waa loo yimid waxaa la yidhi ma qirsan tahay ilaahan maya buu yidhi waa ilaahyo qoryo ka samaysan ilaahan ma qirsan tahay maya oo yaad qirsan tahay waxaan qirsanahay buu yidhi ciisa calayhi asalaatu wassalaam waa la xidhay dadkii waardiyaha ka ahaa ee ilaalinaya gabadh baa ka mid ahayd gabdhihii gabadha kamid oo xiidh la yeeshay diinta nasaaradu ku tilmaamay ayuu ku tallaalay diinta masiixiyada kirishtanka ayuu ku tallaalay ilaa 46 qof oo iyada qoyskeeda ah ay maxaa la yidhahdaa diintaa soo gelisay kadibna markuu ka noqon waayey diinta masiixiyada maalin dambe waa la dilay oo maxaa loo dilay diintaasaa loo dilay sida ay sheeganayaan waa la iska joogay ninkii waa dhintay intuusan dhimaninoo la dilin warqad buu gabadhii u soo diray warqadda ayada ah bakshad guduudan 2 wadnoo guduudan oo 2 qori uu ku soo kala turqay ayaa maxaa la yidhahda u soo diray gabadhii ninkiina waa la dilay waa la iska joogay nimankii oroba la dhihi jiray waxay qaateen masiixiyada ayay qaateen mar alla markay masiixiyada diinta kirishtanka ay qaateen ayaa maalintii dambe taariikhdii dib loo aqriyey markaasaa le waa ninkii falantay ahaa ninkaas asaga ah ninka waan dulminay ninka waan gardaraysanay ninkaasi waa in la abaal mariyo ninkaasi waa ninka ugu horreeyey ee jacaylka abuuray allahu akbar ninka ugu horreeye jacaylka abuuray kadibna maxaa la yidhi asagaan caabudaynaa ilaahu lxub ayaa loo bixiyey ilaahayga jacaylka su-aal baan ku weydiinayaa ma jeceshahay maalinta qiyaamo
adiga iyo falantaa in isku meel layska soo saaro ma aaminsan tahay inuu jacaylku asagu bilaabay jacaylku bilaabayse ma zina mise waa xalaal mase aaminsan tahay dadka carruurta yar buuraha saara ee fiiriya inay dhintaan iyo inay noolaadaan ma aaminsan tahay in lagugu yeedho maanta taxriirul mar'a anigaa lay xoraynaya ma adaa lagu xoraynaya mise islaamka ayaa qiimo kuu yeelay islaamka ayaa qiimo kuu yeelay jacaylka laguu sheegayo ilaahay baan jecellahay ma jacayl maalin ku xidhan baa ma jacaylan hal maalin islaantayda jeclaaday baa jacayla raalli ma ka tahay ninkaaga inaad hal maalin jeclaato nin yaw raalli ma ka tahay hal maalin inaad xaaskaaga jeclaato oo waxyo lasu soo sameeyo mise jacaylka dhabta ah maalinta aanu dhalannay ilaa inta aanu caqliga anagu taam yahay jacaylku waa jirayaa ilaahay baan jecellahay rasuulkaan jecellahay sal ly salam mu'miniintaan jecellahay naftaannadaan jecellahay waalidiintaan baan jecellahay dariskaan jecellahay qaraabada ayaan jecellahay qof kasta oo wanaag iyo ixsaan sameeya ayaan jecellahay